Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda channelka isha ciyaaraha ku xidhan oo kusoo dhowaada muuqaal cusub oo aynu kaga hadlayno shanta heshiis ee ay macquulka tahay inay dhammaystirmaan inta ka harsan usbuucan. Bruno Fernandes ayaa isagu qarka u saarnaa xagaagii dhoweyd inuu ku biiro kooxda Spurs, balse haddeer waxay u eg tahay in kooxda Manchester United ay ku dhowdahay inay xiddigan kusoo biiriso safkeeda. Inkastoo markii hore kooxda uu xiddigani hadda ka tirsan yahay ee Sporting Lisbon ay rabtay in la siiyo ciyaartoy lagu daray 60 milyan oo euro, ayaa hadda waxaa la warinayaa in kooxda Manchester United ay bixinayso kaliya lacag. Xiddigan khadka dhexe ayaa qabsaday warbaahinta Yurub kadib goolashiisii ugu deeqay kooxda reer Portugal. Ciyaareedkii hore waxa uu shabaqa soo taabtay 20 jeer isagoo 12 kalena caawiyay. Wuxuuna sidoo kale muujiyay inuusan ahayn ciyaaryahan hal xilli ciyaareed kaliya ah. Wuxuuna hadda dhaliyay 8 gool, caawiyayna 7 kale, 15 kulan oo uu saftay. Waxaana la filayaa inuu kusoo dari karo haddii uu ku biiro kooxda Manchester United hal-abuurnimadii aadka loogaga baahnaa khadka dhexe ee kooxdaasi. Ciyaaryahanka kooxda Chelsea iyo xulka Faransiiska ee Olivier Giroud ayaa la filayaa inuu dhammaystiro heshiiska ugu biirayo kooxda Inter Milan. Cimilaqan reer Talyaani ayaa hadda tartan kula jira kooxda Juve dhanka kala sarreynta horyaalka, iyagoona hadda hogaaminaya horyaalka Talyaaniga. Waxaana tan lagu sheegay inay sabab u yihiin labada weeraryahan ee Lautaro Martinez iyo Romelu Lukaku oo iyagu sanadkan goolal badan ku caawiyay kooxda. Laakiin meesha dhibku ka taagan yahay ayaa ah inaanay jirin cid lagu bedelo maadaama ay labadooduba ciyaarta kusoo wada bilowdaan, iyadoo Alexis Sanchez uu isna dhaawac kaga maqan yahay kooxda. Eddie Nketiah ciyaaryahankan ayaa amaah ugu biiray kooxda Leeds United xagaagii lasoo dhaafay, balse Arsenal oo ah kooxda mulkiyadiisa iska leh ayaa u yeedhay horaantii bishan isagoo aan dhammaysan xilligii uu ku ekaa heshiiskiisa amaahdu, balse haddeer ayuu mar labaad da'yarkani ku dhow yahay inuu amaah ku baxo mar labaad, iyagoona ay xiiseynayaan kooxo fara badan oo ay ka mid yihiin kooxaha ka ciyaara Championship-ka heerka labaad ee Ingiriiska sida Sheffield Wednesday, Nottingham Forest, Bristol City iyo weliba kooxdeedu ka ciyaarta horyaalka Premier League ee Aston Villa. Ciyaaryahanka kooxda Tottenham ee Kyle Walker-Peters ayaa ku dhow inuu ku biiro labada kooxood ee Crystal Palace iyo Southampton midkood, kadib dhowr xilli ciyaareed oo deganaansho la'aan ah oo uu kusoo qaatay kooxda waqooyiga London ka dhisan ee Tottenham. Way iska caddahay in Serge Aurier uu yahay ka koowaad ee booska difaac dambeedka midig. Walker-Peters ayaa ku guuldareystay inuu kooxda ka helo waqti ku filan, wuxuuna hadda u furan yahay inuu aado koox uu ka heli karo waqti uu ciyaaro, iyadoona ay tartan daran ugu jiraan kooxaha Crystal Palace iyo Southampton inay amaah ku qaataan da'yarkan. Tababaraha Eagles ee Roy Hodgson ayaa isagu sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu xiddigan heshiis la gaari doono, balse Southampton ayaa weli iyana tartanka ku jirta, iyadoona kooxda heshiiska ugu macquulsan miiska soo saarta ay heli doonto adeega da'yarkan. Ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester United, Real Madrid iyo West Ham ee Javier Hernandez oo aad loogu yaqaano magaca Chicharito oo hadda u safta kooxda Sevilla ee ka dhisan waddanka Spain ayaa tan iyo markii uu kooxdan kusoo biiray xagaagii lasoo dhaafay muujinaya calaamado ah inuu u baahan yahay inuu hal tallaabo hoos u dego kadib markuu 3 gool oo kaliya dhaliyay. Kooxda Mareykanka ka dhisan ee Los Angeles Galaxy ayaa qarka u saaran la wareegidda ciyaaryahankan. Kooxda iyo ciyaaryahankan ayaa wada hadallo gabagaba ku dhow ku jira, inkastoo aan weli heshiis kama dambays ah aan la gaadhin. Si kastaba ha ahaatee, qof aan magaciisa sheegin oo heshiiskan warkiisa la socda ayaa sheegay in heshiisku u muuqdo mid suuragal ah, ayna kooxdu diyaarinayso qabanqaabinta soo bandhigidiisa, lana filayo in lagu buuxiyo booskii uu baneeyay ciyaaryahanka reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic, kaasoo horaantii bishan ku biiray kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga. Waad mahadsantihiin daawadayaal, intaasay naga eg tahay xubintii aan kaga hadlaynay ciyaaryahanada ku dhow in lala wareego usbuucan inta ka harsan. Fadlan subscribe saar channelka si aad ula socotid wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Waana idinla soo socodsiin doonaa wixii kasoo kordha suuqa kala iibsiga iyo weliba heshiisyada dhaca inta ka harsan bishan.